الحمد لله الحمد لله مثلا waa dhowr qaybood dhowr mas'alo way su'aasha koobaad nin baan guursaday waa nacay waxaan ka codsaday wala nicis la isnici karaa ninkuna naagta waa nici karaa naagtuna ninka way nici kartaa qulubtana بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء xilliga nabigeena dhacday sallallahu alayhi wa sallam muqiis iyo bariira wixii kala haystay iyaduna waxay aragtay isaga igu nacbayd oo ay ka fasaqatay markay xorowday isaguna iyadu ugu jeclaaday isagoo ooyaya buu xaafadaha iyo dariiqay martaba socon jiray saas darteed sharciga nabiga markay u timid ee jacaylkiisa uu arkay ee uu kala hadlay waxay rasuulka Ilaahay ma amar baa wuxuu yiri maya waan fasaqday bay tiri marka qofku uu nici karaa Thabit ibn Qays xaaskiisa waa kan nabiga u timid ee tiri ninka wuu iga soo booday waa nacay wala isnici karaa kow haddii nicitaanka qofka qalbigiisa heerusan xukumi karin gaaro waa cudurdaar ay gabadhu fasaq ku dayo furitaan ku dalban karto ونبي مركي قبضنا ويديسي ثابت بن قيس من شماس أتمد هي باريرة منا ما قصب لابد أن نفسق أن يحقوا ليهم بويديين كارهان قبضي ثابت بن قيس فريتان بنا ويديسة النبي سجن ويرو فربجي ويقول لي قرقبت بيكم عبد قيس أليس ربنا لقوا من أكسني حقوق جدش ما يشوا ما كمسألة الله بعض وحين ولا نهاي هدي هير كان عتان كجارو قبضوا فرين ويدل بنكرتها ninku haddii uu furana way furmaysaa hadday markaas kadib ku guursato ciidadu markay ka dhamaatana way guursan kartaa misalada saddexaad laakiin meesha taalaay nin kale kuma furin waay misaladaasi gar iyo qaday u baahan tahay xukune fatwa malaha isaga hadduu ku doodayo kuma furin iyadana waadii furtay ay ku doodayso markhaatigii cadayntii isu dhagaysigii bay u baahan tahay markaasaa misalada hadday garteedu taagan tahay la kala xukumi karaa